halkan waxaa mar labaad la sii hadlaya waxa weeye ninka shiina cule leeyahay horta shiina culeyow horey baan kugu sheegay habeen dhowna halkan waan kaala hadlay micna ma samaynayso inaad YouTube camirato oo kolba maqaaxi ka sheegto oo tiraahdo Ismaaciil Gubel waa sida Ismaaciil Gubel waa sida Somaliland markaad xaganayso iyo Puntland markaad xaganayso iyo tan kale markaad xaganayso dhaxaad baad u tahay waad u dhaxaysaa shiina culey baan la hadlaya waad u dhaxaysaa halka labadaba inaad ereeriyatood ka daaqdo labadaba ka qaadato Puntland ka hadasho Somaliland ka hadasho ka dhex daaqdo adiga way waa deegaankaaga waa meesha aad joogto way laakiin Djibouti inaad ku soo carartood halka ka daaqday to adigu ku suurta galaysa ma lacag waa lagu siinayaa malaayiin baa lagu siinayaa baabuur waa lagu iibinayaa laakiin ilaa intee baad si haysan kartaa war af lagu joojinaya dawladdan ma jirto af wax lagu sii olaya dawladdan ma jirto af wax lagu deynaya dawladdan ma jirto ama af weyn soo dhigo dabadii daanyeerka u eeg ama waxa doonto soo dhig ama halka soo fadhiiso ana Allah shaydaan ku yaal ana Allah maxay ku yaal madaxweynaha saad ikhtiyaar adiga leh tan tu sii socoto weey tu loo sii joojinayo sii joogaysa haba yaraatee ma aha laakiin waxaan ku sheegayaa maqaaxidaadan inayna ka sii shidmi doonin dawladda Djibouti kama sii shidmi doonto na Allah shaydaan ku yaal faraxa shakhsi walba uu oran karaa laakiin shakhsi walba ma baran inuu rag shaxaado ma baran jarmalka joogtaa shaqooyin baa dafa waa la shaqaystaa boqolkiiba 80 dadka jarmalka jooga dad shaqaysta weey ma aha dad u kala fataala ma aha Puntland iyo Somaliland ma aha dad yiraahdo noo dhiib ma aha wadanka Djibouti waa dad weey shacabka Djibouti weey haddii adigu laakiin aad iska deyn weydo haddii adigu aad qujuqujada ka deyn weydo adaa ku lugoaya shiina culeyow adaa ku lugoaya adaa ku iimaan beelaya inaad iimaan beeshay oo iimaankii ka tagay afkaagii baa daba daanyeer way kaada dabada daanyeer qofka garanaya afkaagii baa dabada daanyeer way kaada qofku markuu iimaan beelo uu iimaanku ka tago ee uu noqdo ilaahiisa iyo nabigiisa iyo wixiisoo dhanba ay noqoto lacag halkan ka helaa arrimahaas oo kale gashaa war lacagi way dhamaatay maanta wixii ka dambeeyay lacagi way dhamaatay intaad ka qaadan karta annaga kugu taageerayna ka qaado cidaad intaad u heelin karta annaga kugu taageerayna ka qaado shiina culeyow annaga kugu taageeraya intaad u heelin karto wali waxa kugu caawinaya heesii loo tiriyay baa kugu caawinaya Ismaaciil Umar Gelle heesii loo tiriyay khatarta ahaa yaa kugu caawinaya intaad maanta qaadan karta qaado maanta kugu dhowda fursadii maanta ay kugu dhowda shiina culeyow gitaarkan aad qaraacaysa ka imo maanta ay kugu dhowdahay Djibouti saad ku taageeraysa ama odaga saad ku taageeraysay maanta ay kugu dhowdahay heesa badan baa ku soo diraynaa waliba meelaha laga maraan ku sheegaynaa hooyo iyo aabba u badan tahay annaga ku sii siin doona taashiina culey baan leh waxbaad ku sii dheeraan maayo ujeedkan halkan u soo galay live-ka u soo furtay waxa weeye inaan boqolkiiba 80 la hadlo abwaan cali senyo ayaan u soo galay inaan halkan kala hadlo cali senyo hadal waxaan kugu soo gabagabaynaynaa waxa weeye gabadha iyo cubadkeeda haddii aad sida ragga ula dhaqmaysana ula dhaqan haddaad sida ragga u qabaysana u qab haddii laakiin gujo iyo ubadkan kaa qaadan ay meesha timaadana adigaa ku lugo-ayo adaa ku gubanaya cali senyo taa maqal maskaxdaadana ku hay ummadda reer Djibouti waxaan leh munaafiqiinta idinku dhex jirtaa nooca way munaafiqiinta warka idinka tabisaa nooca way waar dadka Djibouti waxa ku dhex nool waxa weeye dad u jooga Ismaaciil Umar Gelle iyo marwadiisa dalka gabigiisaba ummadda reer Djibouti waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay kala barteen dadka ku jooga Ismaaciil Umar Gelle iyo marwadiisa dadka dal ahaan u jooga dadka Djiboutiyaannimo u sheeganaya dadka u haysta horumarka iyo wanaaga ay Djibouti gaadhay ay ka soo tabiyaan inay uga soo tabiyaan sabab ah marwada iyo madaxweynihiisa bas oo maanta inta khalkhalku markuu yimiday maanta ummadda reer Djibouti markii ay kacday
maanta ummadda jabuuti markii ay wax dareentay dadka wejiyadoodu waa kuwaa soo baxaya ummadda reer jabuuti inaad fahantaan isku daya dadka maanta mar alliya markii la arkay dowladani taliskeedu inuu sii ciirmayo ummadda reer jabuuti inay dulmigii ka kaceen noocaas oo kale idinku soo dulbaxay uu cali seenya ka mid yahay baa idinku soo dulbaxaya malaayiin kale baa dalka jabuuti ku nool oo wadaniyadoodu iyo jabuusiyaanimadoodu iyo waxaan ku wuri qadiyadan ay maalin walba baafiyaan ay tahay madaxweynaha iyo marwadiisa laakiin labadaa waa lagu kala baxaya qofkii reer jabuutiya qofkii dalka iyo dadka dan kale baa jabuuti sii joogaya cid kaloo sii joogaysaa ma jirto hadalkayga saa doontaan u kala fasirta wax iga qosay habeerati ma jirto hadalkaygaas alliya saa doontaan u fasirta dalka jabuuti waxa sii joogay ciduu doontaa ha cadaada ha madoobaado dadka dalka iyo dadka dan kale laakiin dadka Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa dalka u jooga siday u tagaan baad u tagaysiin siday u tagaan iyagu baad u tagaysiin taamaankiina galiya siday iyagu u tagayaan baad idinkuna u tagaysiin madaxweynaha iyo marwadiisu maaha kuwa sii jirayo sii joogaya oo dalka sii haynayo sii joogaya ma cali seey anagu waan kaaga mahad celinaynaa aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa inaadna tustay adig wejigaaga iyo wejiyo badan oo mar alliya markuu khalkhal ku yimiday mar alliya markii ummadda reer jabuuti dareenkoogu uu mid noqday mar alliya markii ummadda reer jabuuti ay dareentay dhibaatada waddanka lagu hayo markay dareentay noocaagaasoo kale inuu soo ifbaxo oo weliba hormood noqdo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay cali seeyo waxaan mar labaad ku celinayaa war cidda jabuuti u joogta Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisu waa gabagabo cidda u joogta Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa waddanka dhanba u aaminsan waddanka dhanba u joogta waddanka dhanba waxaan ku waridaa dax u ah labadaasi way tagayaan siday labadaasi u tageen baad adiguna u tagaysaa cidda doontaa haw cid alliya cidda doontaa haw wax naga qosay ma leh cid alliya cidda doontaa haw wayna buuxaan wayna badan yihiin dad labadaa qof waddanka u jooga labadaa qof oo kaliya dalka ku jooga shaqo hadday tahay labadaa qof ku hela wanaag hadday tahay labadaa qof ku hela cisi hadday tahay labadaa qof ku hela deganaansho hadday tahay labadaa qof ku hela ay labadaasi way tageen adiguna waa tagaysaa sida cali sanyaarad sii qaadanaysaa xamaantaada inta kaa taallay isagu ubad buuba sheegtay wuxuu ubadkaygaasa sii qaadanaya xabaada lidku daalin maayo waan soo gabagabaynayaa laba fariir oo kale cali sanya kaga tegaya cali sooye alxamdulilah dheh adigoo da'daa joogaa tafiir lagaa reebay da'daa adigoo joogaa tafiir lagaa reebay tafiir maanta kaa dambaysoo ku tirsata markaasaad anaga imika halkan noo soo fadhiiso leedahay ubadkayga isiiya tan haddana tan isiiya tan kale isiiya wallaahi baad lowi caddaad sheegtee kaarteegay degan yihiin kaarteeg kale oo ka fog baanad geyn karin ubadkaa ay dhagay far cali senyo dhagay far gabadhan iyo ubadkeedu dalkeedii bay joogaan haddaa lagugu soo diray inaad asaasiyad kala abuurto haddii laguu soo diray inaad xasaasiyad kala abuurto haddii laguu soo diray inaad dad kale lagu caayo haddii laguu soo diray in axwaa kale aad abuurto haddii laguu soo diray inaad dadkas dhinac kale u wareejiso reer iyo maxay lagu gali maayo shaqsigaagaan anagu intaan ka dhirigna muudsanaynaa adiga keliya adigoo cali seeye ah oon cid kale kugu labayn oo walaasha walaalka aabbaha familkaaga anagoona kugu labayn oo adigoo cali seeye anu intaan ku muudsana saa ku tuurayna adiga TV-gaagu inuu kasii furnaan doonana waa la isweydiin doonaa TV-gaagu inuu sii furnaan doono ama xafiiskaagu inuu jabuuti kasii furnaan doonana shicibka reer jabuuti lasii weydiin doonaa aad baan idin salaamayaa khayr baan idin rajeynayaa deeqaay ilaa adeer waxaad joogtaa dalkaagii waxaad joogtaa dhulkaagii waxaad dhex joogtaa shicibkaagii waxaad dhex joogtaa tolkaa waxaad dhex joogtaa waddankaad ku dhalatay waxaad dhex joogtaa waddankaad ku dhalataad dhex joogtaa iska daa ubad lagaa qaatay shalmadaadan lagaa qaadin karin shalmadaada taa adaan kuu soo diraya fariinta adaan kuu soo diraya shalmadaadaan lagaa qaadi karin macdala waa ubade shalmadaada maxaa ka sokay shalmadaadan lagaa qaadi karin
maalinta qof jooga waddanka oo adiga kugu abtirsada oo adiga wadaniyad kula sheegta oo adiga tolnimo kula sheegta oo adiga walaalnimo kula sheegta maalinta dalka Djibouti laga waayo cidii doonto waxa ka yeesho cid alle iyo cidii doonto maalinta waxa ka yeesho laakiin intay ku joogaan intuu aniga halka ka maqan oo afkaygu qoyan yahay wallahi baana waxba laga qaadi karin 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 deeqayadan ku sheegay inta waxba laga qaadi kari maayo intuu carabkaygaas qoyan yahay wax laga qaadi kari maayo intay muwaadiniin reer Djibouti oo damiir leh ciday doonaan ha kala ahaadaane ay dalka kula joogaan wax laga qaadi kara ma jirto maalin dambe yaanu ka maqlin maalin dambe yaanu ka maqlin ubadka laga soo maraya shalmadaadan laga soo mari karin shalmadaada ayaa laga soo mari karin maanta wixii ka dambe xumaanta lagu tuso tul la mid ah tusaynaa doqonnimada lagu tuso tul la mid ah tusaynaa afartan oday reernimada kula sheegaynaysan annaga maanta leh cid reernimo nooleeynaysa halkaasaan idin dhignay cid reernimo sheeganaysa halkaas soo fadhiisanaysa ana reer hebel ka qabanna leh ana kaaga baxay maanta laga bilaabo ana kaaga baxay maanta laga bilaabo reernimada sheeganaysa ana kaaga baxay haday reernimadu tahay tul la isdiiwaan gelinayo la isqorayo haday tahay reernimadu tul la isku darayo maanta wixii ka dambeeyay ana kansalay maanta wixii ka dambeeya ana halka dhigo kansalay deeqa reerkay tahay baan nahay fuaad reerku yahay baan nahay dulmana kasto reer Djibouti ah ciduu yahay baan nahay dulmana kaste oo reer Djibouti ah qoladu yahay baan nahay war annagu fuaad cidiisaan nahay annagu deeqa cideedaan nahay annagu samiire cideedaan nahay annagu cid alle iyo cidda dulman ee dulmiga dalka Djibouti ku haysa qoladay ku abtirsanaysan annagu ku abtirsanayna haddaad ku macaashteen oo ku faa'iideen inaad umada kala qoqobtaan inaad qofka maskaxdiisa ka dhaadhicisaan qofka maxaa ka galay adeer dulmigana walaaleeya gumaysigana walaaleeya gaajadana walaaleysa kibirka iyo tacadiga umada lagu hayana walaaleeya intaas oo dhab anagana walaaleysa anagu dadka dhibaatada sheeganaya waxay yihiin baa la nahay waxay yihiin baanu la tirsanaynaa cidda yihiin baanu la galnaa hadii laga saaro cidda laga saaray baan raacina hadii laga saaro cidda laga saaray baan raacina deeqa waa qaran fuaadna waa qaran fuaad waa qaran fuaad waa qaran maanta aanu ku cileynaa baraan ku cileynaa fuaad waa qaran dadka maanta u soo abtirsanaya dadka maanta u soo ordaya dadka maanta laabta u soo jeexanaya shalay baa laabta loo soo jeexan lahaa fuaad maanta cidda u kacday tulkii maaha deeqa cidda u kici doontahay tulkood maaha waa alliyo ummadda dhibaataysan weeye boqolkiiba 9 ummadda reer Djibouti waa dad dhibaataysan boqolkiiba 9 waa dad isriya ab kaliya wadaaga on cid kale u dhaxaynayn cid kale u dhaxaynaysa ma jirto saasaan idin sheegay khayr baa dirajeenaya waxa la yiraahdo inagoo isku duuban baan guuleysan doonaa inagoo isku duuban baan guuleysanayna inagoona la kala xadin baan guuleysanayna inagoo ina qof inoo soo dhawaan baan guuleysanayna maanta wixii ka dambeeyay waxaan leeyahay saa TV dalka kama shaqeyn karo saacada laga bilaabo anu waxaan aaminsan wallahi waxa weey saa TV dalka kama shaqeyn karo biro uu dalka kuleeyo ka furnaan kara habeeraate ma jirto xumaantu maanta ninkaasi na tusay xumaantu maanta ninkaasi na tusay waxaan jecelahay boqol mad reer Djibouti inay tusto xumaantu ninkaasi maanta ina tusay waxaan boqol rajeynaya shacabka reer Djibouti inay tusaan waxaan rajeynayaa shacabka reer Djibouti inay deeqa tusaan inay iyadu joogto dulkeedii inay iyadu joogto dalkeedii inay iyadu la joogto dadkeedii oo malqabad ay leedahay aan la taaban karin malqabad ay leedahay iska daacaliseeyad dal kuwa xukuumadda isku sheegay inay taaban karin khayr baan dirajeenayaa insha Allah way guuleysan doonaa cayayaanka dadka ku jooga wadanka in Ismaaciil Umar Geli marwadiisuna saas u soo baxbayaan barasho wanaagsan reer Djibouti barasho wanaagsan saas iska soo baxbayaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh